maxaad kala socotaa taariikhda dagaalkii Uhud yay guusha raacday maalintaasi maxaase dhacay fadlan haddii aad xiiseynayso inaad ogaato sii daawo muuqaalka sidoo kalena share garey like saar comment ka dhiibo gaarsii asxaabtaada mahadsanid dagaalkii Uhud waa dagaal dhacay maalin Sabti ah Maarso 19 sanadkii 625 ciise dabadii oo u dhigantay 3 Shabaal sanadkii 3 ee Hijriga Islaamka dagaalkaas oo ka dhacay buurta Uhud ee waqooyi galbeed deegaanada Carabta dagaalku waxa uu ka dhexdhacay ciidamo Islaamiyiin ah oo ka yimid magaalada xarunta u ahayd Islaamka waqtigaas ee Madiina kuwaas oo uu hogaaminayay Nabi Maxamed nabadgelyo in xariis korkiisa ahaatee iyo xoogaga ciidan ka soo duulay magaalada Makka oo uu hogaaminayay nin lagu magacaabi jiray Abu Sufyaan ibn Harbi kaas oo ahaa hogaamiyaha iyo qabqablaha qabiilka Quraysh ee ka soo horjeeday diinta Islaamka dagaalkan Uhud wuxuu ahaa dagaalkii labaad ee ka dhexdhaca kufaarta reer Makka iyo muslimiinta u soo qaxay isla markaana degan magaalada Madiina waxaa ka horeeyay dagaalkii Badr ee dhacay sanadkii 624 markaas oo tiro yar oo muslimiinta ka mid ahi jabiyeen dhowr kun oo ciidan hubeysan taariikhda miilaadiga markay ahayd Maarso 11 sanadkii 625 ciise dabadii ayaa guuto ciidamo si fiican u hubeysan oo ka soo baxay magaalada Makka si ay uga soo argutaan dadkii looga dilay dagaalkii Badr ciidamada reer Makka si fiican ay u soo qalabeysteen oo xitaa dumarkoodii iyo caruurtoodii ay hore u soo kaxeysteen si aynan marnaba u jabin dhinaca kale markii warka weerarka reer Quraysh soo gaaray muslimiinta reer Madiina iyaguna waa ay isdiyaariyeen isla markaana hore u soo qaateen wixii hub iyo qalab ay heli kareen si kastaba ha ahaatee xoogaga ciidamada labada dhinac waxa ay fooda isku dareen banaanka dhinaca buurta Uhud halkaas oo dagaalka qaybtiisii hore guusha ay ku raacday ciidamada muslimiinta iyagoo moodayay inay guuleysteen ayaa in badan oo ciidamada muslimiinta ah daba ordeen dagaalyahanadii reer Makka taas waxa ay fursad siisay guuto dagaalyahano fardooley reer Makka ah kuwaas oo dhabar jabin ku sameeyay ciidamada muslimiinta isku soo wada duubo tiro badan oo muslimiinta ah ayaa ku dhimatay dagaalkaas Uhud kadib markii ciidamada muslimiintu ku jabeen dagaalkaas ugu dambeyn waxa ay guusha raacday reer Makka fadlan haddii aad ka heshay qormooyinka noocan oo kala ah qaybta hoose ee commentiga noogu dhaaf fikirkaaga si aan u joogteeno maadaama lagu guda jiro bil barakeysan ee Ramadaan isla markaana ay wanaagsan tahay in dadka Soomaaliyeed iyo muslimiinta adduunkuba ay sii tixraacaan taariikhdooda waxaan ahay Cumar Boole intaynu barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo